بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال وسلامتي الملكستو أدنغا داونيسان. maanta waxaan idinku talagalnay barnaamij aad iyo aad muhiim u ah oo aan filayo dad badanna inay ka faa'iideysan doonaan, dad badanna ay u bogi doonaan ayaan idinku talagalnay. barnaamijkaas oo ah ruqya sharciya, waa qur-aanka laisku akhriyo, laisku daaweeyo. marka barnaamijka biidn illaahi tacaala waxaa marti nooga ah asheykh maxamed axmed abu khuluud. asigana sheekh maxamed uu ku takhasusay barnaamijkaas oo ruqya sharciya ku takhasusay. aan filayo barnaamijkaasna in dad badan ay u baahan yihiin, maxaa yeelay dadka badigooda maanta waa isla wada xanuunsan yihiin, xanuunkoodana waa la garan waayey. markii isbitaal la geeyey, kombyutaraad la saaray, meel kasta la geeyey, dadkii xanuunkooda waa la bixin waayey, dhakhaatiirtii way garan waayeen. marka dadkaas oo kale waxa weeyaan ayagoo kombyutar aan la saarin ama dhakhaatiirna aysan baarinba, qofka markastaba qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala wuu u baahan yahay. inkastoo dad badan barnaamijka ay ka dhigteen qur-aanka si ganacsi ah, marka taasna anagoo meesha ka saarayna aysan ahayn barnaamij lagu ganacsanayo. marka waxaan jecelnahay in dad badan ay ka faa'iideystaan barnaamijkani, aysan naqanin barnaamij lagu tijaarisanayo oo lagu ganacsanayo aysan naqanin. ayaa rabbi subxaana wa tacaala aan ka rajaynayna biidn illahi tacaala uu noqdo barnaamijkan barnaamij dadka baahida ay u qabaan oo qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala, diinta ilahi subxaana wa taala u baahan yihiin lagu daaweeyo, oo alla dartiisna loogu daaweeyo. intaas ka gadaal barnaamijka marka waxaan wareysan doonaa sheekh maxamed axmed abu khuluud. sheekh maxamed ow kusoo dhawaa barnaamijkan aruqya sharciya. saan la socona sheekh maxamed oo dad badan ayaa iska xanuunsan, dad badan ayaa markasta qur-aanka lagu akriya, qaarkooda dhibaato badan ay la kulmaan markii qur-aanka lagu akriyo, waxyaalo badan ay iska arkaan. marka su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinaya waxay tahay, maxay tahay aruqya naftirkeeda, maxay tahay dadka inay horta ay fahmaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. marka ugu horeysa horta ruqya sharciya waxaa la yiraahdaa qur-aanka in dadka lagu akhriyo, ama qur-aan in qofka maaragtay uu akhriyo oo qof xanuunsan ama qof aan xanuunsaneynba ku akhriyo. qur-aankana maaha maaragtay siday dadka u maleeyaan in qofka xanuunsan keliya lagu akhriyo. cid kastaa qur-aankan u baahan, jirkaa u baahan, dhiiggaa u baahan, qur-aanka maskaxdaa u baahan, lafaha u baahan. markasta qur-aanku waa loo baahan yahay. xataa rasuulullahi sala allahu alayh wasalam waatuu dhihi jiray, yani cabdullaahi ibni mascuud igu aqri. oo markaas rasuulka cabdullaahi ibni mascuud uu yiri aqra'u calayka ya rasuul allah wa calayka unzil. markaas cabdullaahi rasuulku wuxuu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam, inii uxibu an asmaca gayrii. waxaan jeclahay inaan ka maqlo. taa waxay ku tusay macnaha in qur-aanka cid kasta ay u baahan tahay, wa khaasatan waxaa usii baahan qofka markuu xanuunsan yahay qur-aanka, markaas aad buu ugu sii baahan yahay. marka ruqya sharciyada waa qur-aanka oo laysku daaweeyo, ama qur-aanka oo laysku aqriyo, oo sidii maaragtay sunna ahayd ee maaragtay in qofka loogu aqriyo. jazaak allahu khayr. sheekh maxamedow, saa sheegtay cabdullaahi ibnu mascuud waa rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayuu qur-aanka ku dul akhriyay suurat nisa. taasi waxay kutusinaysaa in qur-aanka qof kasta uu u baahan yahay, markuu xanuunsan yahay iyo markuu caafimaad qabo, saa sheegtay. marka waxaan jeclahay, khayr allah ku siiye, dad badan ayaad la kulantay, dad badan ayaad aragtay oo qur-aanka aad ku akrisay. qaarkooda ay sheeganayaan in meelo kale intay tageen oo qur-aanka lagu akhriyay, qaarkooda la yiri maxaa la yihahdaa sixra lagu siiyey, qaarkooda la yiri ilaa kugu dhacday, qaarkooda la yiri jiniya qabtaa. marka adiga see dadka u daaweysaa markay ku yimaadaan? annaga horta waxyaabahaas dadka loo soo sheegay waa ka dhegeysanaa, laakiin waxaa ugu muhiimsan annaga qur-aanka aan saarayno. wax walboo dadka haaya waxaa ka muhiimsan qur-aanka markii la saaro laaziman waxay ka helayaan
faa'iiday ka helayaan lanno allah subxaanaه watacaala qaal wanunazilu min alqur'ani ma huwa shifaaء waraxma washifaaء lima fi الsuduur الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله قرآنك واسداس marka wixii loo soo sheegay oo dhan qofka intaan meel iska dhigno aan anaga marka hawsheena qabsanaa haddii qofka maalan waxaa dhici karta in qofka loo soo sheegay in uu jin qabo kale maalan jin ku jiro waxay u badan tahay qofka in uusanba jinba qabin oo laakiin qur'aankiina lagu akhriyey qofka laakiin ama codkiisii bedelmay ama uu qayliyey ama uu jirkiisa gariiray ama uu qofka xataa orday qofka waxaan dhihi karnaa wax jin ah ma qabtid haddana qofku wuxuu ku leeyahay aan waa qayliyey waa ooyey waa cararay maxaad ii leedahay jin ma qabtid sidee ku dhacday xaaladda qofka marka ugu horeysa qur'aanka marka lagu akhriyo hadduu cararo ama hadduu qayliyo ama hadduu ooyo ama hadduu codkiisa bedelmo waa fiirinaysaa marka hore kadib waxaa ku leedahay qofkii wiiga dambe iisoo noqo arintiis waa inaad daristaa marka qofka xaaladiisana waa inaad khibrad u lahaataa oo aad waraysi isaga la yeelataa haddii famil keeneen familkiisana aad waraysi la yeelataa hadday ku cadaato marka inuu waxaan jin ahayn qofka in maaragtay si mentality ah aad u daaweysid oo aad counseling u samaysid wuxuu ku dhihi karaa qofka maxaa iga jiraysiiye aniga gariirka maxaa ii keenay لأنه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذكر إلهي درتيس أيا جركاغ أخشوعي واي أنقن كرين واي آذان جركاغ هدو خشوع أما أويسد أما أي وحكوكو دعان محا بلايد أون مرول بلوغو أرطاه maxay u noqon weysay jirkiyaa khushuucay liannahu innaa sanulqi calayka qawlan thaqiilan qur'aanka ma yara sha'nigiisana ma yara qur'aanku waa culus yahay low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasaddican min khashyati illaah qur'aankan sha'nigiisa ma yara marka qur'aanka horta anoo soo koobaayo dadka ka ganacsada ma dhihi karo laakiin dadka howlahan ku guda jiro waxay ka dhigteenba qur'aankan inuu qof waalan daaweyn karo ama qof sixran ama qof ilhaysa bes saddexdaas shay dadkiina jidkii ilaahay ay maaragtay ka baxeen ama laga bixiyey sababtoo ah haddii qofkii qur'aankan oo ahaa nuuru samaawaat walard allah waa nuuru samaawaat walard qur'aankana waa nuur yahdi illaahu man yashaa subul asalaam qur'aanka lafuhuu galaa jirkuu galaa maskaxduu galaa dhiiguu galaa xididahuu galaa wuuna dhaqaajiyaa taqshaciru juluud aladiina yakhshawna rabbahum waxaa dhici karta marka qofkaas inuu qur'aankii fixing ku samaynayo uu daawo ku samaynayo uu healing ku samaynayo uu filtering ku samaynayo uu jinba shuqul ku lahayn marka qofkaas haddii isagoon jin qabin jin loo sii sheego wuu sii baxayaa dhinacii jinkuu aadayaa xataa asagoo qur'aankii daawo ah laakiin meesha waxaan jirin baa loo soo sheegay sheekh maxamedow sheekada adaa wadatay aan ka dhexgale marmar waxaa dhacda qof oo maxaa la yidhahda qur'aan lagu akhriyay jinin uusan qabin in la ciijiyo ama in la dilo ama in la karbaasho oo qofkaasna jini uusan qabin caafimaad uu qaba soo ma dhacdo waxyaalahaas oo kale nacam taas waa kaaga jawaabi doonaa laakiin wax yar ka hor waxaan ka hormarinayaa qofka qur'aanka aqrinaya nafsirkiisa sometimes banarooyo qaba ninkii qur'aanka aqrinaya qofka qur'aanka aqrinaya naftirkiisa sometimes asaa banarooyo qaba sababtoo ah markii loo keeno this patient qofkan dhibaataysan ama xanuunsan loo keeno straight away wuxuu u maleeyaaba qofkan ama waa waalan yahay ama sixran yahay ama jimbu amba cilbaa haysa saddexdaasaa horta ku rakiban sheekha ninka naftirkiisa wax akrinaya asheekh saddexdaas sheekh ayaa ku qufulan sometimes laabudda wuxuu marka qaarkood inay qofkii ceejiyaan ama ay dilaan ama abuse ku sameeyaan ama biyo 40 litir biyo cusbana lagu dar ku dilaan qofka ama siyaan waxaa u keenaysaa isaga daacaday ka tahay sidaasaa asaga uu u maleeyaa daawada inay tahay kow
tan labaad sometimes mentalityga dadka ayaa sidaas jecel صح oo waa ceejiyey waa laga kor qayliyey صح ayay aaminsan yihiin صح jinigana dadka waxaan u sheegi lahaa haddii la ceejiyo marka uu u soo socdaba inuu sheekha wixii ceejiyo ayuu meel kale ku cararaa صح marka ceejintaas badanaa waxay u badan tahay qofkii maskiinka ahaa ee xanuunsanaa uun in la ceejinayo الله أكبر hadduu xanuunsadana isagaa qaylinaya صح sometimes dadka loo keeno ee xanuunka qaba dhalinyaro hadday yihiin waxay u badan yihiin in maalan wax ay iyagu rabeen loo diido kale صح waxay iyagu rabeen inay samaystaan loo diido marka qaara isku rida balaayo isku soo dejiya صح markii balaayada ay isku soo dejiyaan sheekh haddii loo geey hadduu ceejiyo way fiicnaanayaan kuwaas oo kale laanno awalba wax ma jirin wax la dhaho kibir ahaaye أيه maalinta dambe wuxuu ku dhahaa marka anigu waa fiicanahay jinkii waa baxay صح qaybtaas way jirtaa oo inay ceejiyaanta u baahan oo waxay u noqonay daaway u noqonay laakiin 99% uma baahna dadka in la Masha Allah. ceejiyo quraanka nuur ah isaga meel kasta daaweynaya ما شاء الله خير الله كسيه شيخ محمد او برنامج بدن ايات كهذا الشيء إلهي سبحانه وتعالى dad badan aad dhageysana ku intifaaco dadka waxa weeyaan saas sheegtay qofku wax akhrinaya asigoo uusan khibrad uusan u lahayn hadda maxaa la yiraahdaa waxba uusan ka aqoonin laga yaabo qofkii inuu biyo siiyo cusbo ku daro wax yaalo kale oo qofkii dib u geysan kara inuu siiyo ayaa dhici karta ayadoo aan la wareysanin qofkii dhibaatada haysata ayadoo aan la wareysanin soo ma dhici kartid waxaa dhacday in qof maaragtay ciyaal haysata ay noo timid Haye. iyadoo maaragtay meelo badan soo martay Haye. meelahaas badan ay soo martayna loo soo sheegay in dhowr meel ay 20 jeer intay tagtay loo soo sheegay waa jin meel kale haddana ay markii meesha lacagta ka dhamaatay meel kale tagtay haddana waxaa loo sheegay waxaan inay jin iyo il yihiin haddana meeshii way ka tagtay meel kale tagtay waxaa loo soo sheegay waa jin iyo il iyo macal sixir صح saddex shay ayaa loo soo sheegay صح saddexdii shay markii loo soo sheegay ay soo daashay lacagtina ka dhamaatay ay wixiina weli ay kusii badanayaan ayaa waxaa dhacday in maaragtay ay noo timaaday waa wareysanay counselan u sameynay waxaan ogaanay markii wax kasta ay noo sheegtay Sax. in ay xaq gashay صح ay wax maaragtay cuquuba ayna ku dhacday صح cuquubada ay ku dhacday waxay ahayd haddaan soo koobo in qofkii maaragtay ay keenay wadanka ay ka saartay guriga صح marka waxay noqotay taas jawaabteeda waxay noqotay ama ciqaabteeda min Allah waxay noqotay in qofkii ay habeenkii hurdi weyso Haye. ay ciyaalkii iyadoo qaylinaysa ay soo boodo hurdada ay ka soo kacdo ay ciyaalka dhahaan marna waxaa u qaylinaysa sida eyga marna waxaa u qaylinaysa sida bisada marna waxaa u qaylinaysa sida libaaxa إنا لله iyadana marka la wareysto waxay ku leedahay ani qaylo waa arkaayo horta laakiin ma maqlaynin laakiin waxaan mar walba arkaa iyadoo bahala ay bursanayaan Sax. ama libaax ama shabeel ama mukulaal madow ama ey madow صح سبحان الله maalintii soo hartay markay ciyaalka iskuulka aadaan guriga ma joogi karta kaligeed waa naxi waxa wacwacaya gadaasheeda ka qaylinaya waxa ay u malaysaa inay taabanayaan lacagtana waxay tiri baraka male mar walba lacagta Haye. baraka male Sax. intaas lix caruur waxaan haystaa korsadaa alxamdulilah lacagtana baraka male Haye. deynaan xataa ku noolnahay لا إله إلا الله lacagta meelahaas kalaa horta looga soo dhammaystay taas marka daawadeeda qur'aan kaliya ma aha ee waxay ahayd qur'aankana waa qur'aan ma sha Allah laakiin in ay xuquuqdii dadka ay ka xayuubisay inay Inay u soo gudo. celisaa صح xuquuqdooda إنه يقدو ha toobadkeen Allah subxaanahu wa ta'ala awalan wa akhiran iyo qofkii ay xaqa ka gashay oo ay xataa criminal ka dhigtay ay dawladana u dhiibtay inay dhahdo aniga ma ogeyn waxaan sameynayay صح dhibaataana maaragtay waa xoogaa yar waa xanaaqay laakiin beenteeday ahayd ninkii criminalnimadaa laga soo bixiyey gurigiisaa lagu soo celiyey xaqiyaa loo celiyey isagaa maamulaha guriga iyo reerka noqday alxamdulilah way fiicnaatay الله أكبر آه. الله تاس مركو وحال ليه هي وعقوبات ha cuquuba waa qur'aanka marka qofku waa ka dhigaya xaqa qofka oo habeenkii dhan ooynaya ee gurigiisa laga saaray oo kale absolutely rag iyo dumar wixii xaq laga galo dhan waa isku wada mid hadduu ragga cuquuba uu ka galo xaaskiisa iyo caruurtiisana قال أسيجنا ساس sidaasoo kale uu noqonaya waxba uma hagaagayo wax kastana way ku adkaanayaan Sax. baabuurkiisa shil buu galayaa markaas waxaa laleeyahay qofkan waa la sixray ama ilaa ku dhacday sheekh ha loo geeyo waxaan ha laga saaro sheekha marka waa inuu uu raacaa arrinta u
fixin ku sameeya oo sida ugu nidaamsan ugu toosan uu ku hagaajiya. allahu akbar ma sha allah baaraka allahu fiik daawadayaal waad maqlaysaan barnaamijka ma sahlan waxa weeyaan dadka ay u maleeyaan habeenkii markay qaylinayaan aysan seexan karin hadday cuquubad ay galeen ama ha dulmiyaan daraskoodii ama walaalahoodii ama qaraabadoodii ama nagaday tahay ninkeeda ha dulmiso waa in qofku uu ka toobad keeno qur-aanka daawo waaye laakiin qofku cuquubad uu ku jiro ma daaweynayo marka waxaa la rabaa qofkii inuu cuquubadii uu galay ama dembigii uu galay inuu kasoo laabto hadduu nin yahayna inuu xaaskiisa dulmiga uu ku sameeyey inuu ka toobad keeno sheekh maxamed oo khayr allah ku siiyo waxaa kaleedoo jirta aran kaleed aan ku weydiina ayadan muhiim ay tahay ka waran ilmaha teen age-ka gabar ama wiil ha noqda haday rabaan qaarkoodii waxaad arkaysaa say ay u fiican yihiin kullejka ay u dhiganayaan markay jaamacadda ay gaaraan ayagoo waxaad arkaysaa gurigii ay dhex fadhiyaan waxna aysan qabanaynin aynaysan dhaqaaqi karin markii dambe ilaa gabadha ama wiilka guri qolkii isku soo koobaan ma rabaan inay qolkoodaba ay kasoo baxaan say u socoto sheekadii jaamacadii loo dhiganayo jaamacadii hadda waxaa leeyahay waxbarashadii ka adkaatay inuu waxbarashadii uu wado ma rabo wixii dhan waxay noqonaysaa wax oo bikeeri lagu soo aruuriy oo kale qofkii dhan wuxuu noqonaa qof inuu la hadlo ma rabo qof inuu la sheekaysto ma rabo inuu waxbarto ma rabo jaamacadii inuu ka hor imaana dad badan ayaan aragnay marka ay leeyihiin gabadhan il baa ku dhacday waa la sixiray ama wiilkan il baa ku dhacday waa la sixiray arrintaas marka maxaad dhihi lahayd bismi illahi raxmaan raxiim arrintaas iyadana way jirtaa horta marka hore ciyaalka iyaga xataa waxyaabahan horta badanaa waxa isha ku keena maxaa kamid ah isha waxaa qofka u keena waxaa kamid ah kibirka oo kale qof kibir badan oo kale ilaa uu imaanaysa quruur wax la dhaho istustuskoo kale ama qofka inuu ilaahay wax baray ama inuu ilaahay qurux siiyey ama ilaahay inuu maaragtay wax un active ku yahay qofkaas laanu qaaruun markii dhulka uu ilaahay la gooyay faqasafna bihi wa bidaarihi al-ard goormay u timi laanu 20 sano uu taajir ahaa laakiin markii uu mashaacir naas kiciyey dadka mashaacirtooda iyo feelingkooda markuu kiciyey ay dadkii ma aragtay dareemeen inay waxba ahayn faqiirihiin maal lahayn laakiin asagana uu maalkiisa uu dadkoo dhan istustusay ayay yiraahdeen yaa layta lana mithla ma utiya qaaruun innahu laduu xadin cadiim mashaacir naas uu kiciyey dadkii ma aragtay uu ka dhigay inay adduun iyo maal ay jeclaadaan markaasaa ilaahay ka argoostay fakhsafna bihi wa bidaarihi al-ard marka ilaahay hal tusaalo ku tusaa malaayiin tusaale quraanka ma gelinayo quraanku waa wax kooban oo macaani leh oo balaaqa leh marka wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala tusaalahaas nagu tusayaa iyo nabi yacquub calayhi salaam ciyaalkiisa markuu kula dardaamay laa tadkhuluu min baabin waaxidin wadkhuluu min abwaabin mutafariqa walaa ugni min allah min shay waxay ku tusaysaa isha dadka iska ilaaliya isha dadka sidee iskaga ilaalinaysa ha istustusin mashaacirtooda ha kicinin dadka dhowr oo ixtiraam oo xaq dhowr xaqay kugu leeyihiin qofkaana marka su-aasha ay weydiisay ee college-ka dhiganayay hadday gabar tahay ama hadday wiil tahay kaba soo qaad waa gabar college-kay dhigataa ayada college-ka un bay taqaanaa ma taqaanaba hooyadeed inay kaalmayso ay hooyadeed kitchenka la gasho jikada la gasho ay weelka la dhaqdo ay dharkeeda iyada gashanaysay iskoolkii college-ka u qaadanaysay ay ka caawiso sidii loo meeri lahaa cunto karintii hooverkii guriga iyo hawlihii inay ka caawiso waxaasoo dhan iyada ma taqaano kaliya xataa haddii la yidhaahdo qolkaaga nadiifi ama meesha aad seexanaysa ama kursigaaga ama waxaa wax ku baranaysay waxay ku leedahay aniga college baan dhigtaa taas waxaa dhici karta marka inay hooyadeed ma habaarayso hooyada waa hooyadeed way fiican tahay daa'iman hooyadeed wax xun ma dhehayso qalbigana kama nacayso laakiin xaqii waalidka oo ilaahay xaq ahaan u dhigay meesha xaqaasaa qofkii cunugii yaraa kasoo bixi kara isagoon xataa la habaarin hooyo oo oysay oo kale maalan oo intay ilmihii soo korisay haddana aan ilmihii weynaaday xataa hooyadii kaalmaynaynin iyadana taas ilay keenay ama dadkii xataa guriga ay kula nooleed oo ayna kaalmaynaynin ay anfacaynin iyo dariskii wax taraynin oo ay only concentrating college-kaas ay ku tahay taasaa il u keenaysa
eelsha markay u keento marka waxaa ku dhacaya inuu qofkii ama qayliso ama madaxa wareero ama laga kor qayliyo ama ay maaragtay waxaan dhan ee waxaan u samaynayso waxbarashadan ma ahayn waxbarashadii dhanaa marka la nacsiinaa. allahu akbar. qofkii marka dhibkaasa ku dhacay qodob ku aruuraya keligiis. daawadayaal waad maqlaysaan gabdhaha iyo wiilasha teenage-ka ah waa arrin aada muhiim u ah. qofku waalidka in layska ilaaliyo, ishiis layska ilaaliyo, waalidka la caawiyo, waa kusoo koriyey, waa kula rafaaday, waa kula dhibtooday, inaa adigana aada caawisid. marka shalay oo kale gabar saas oo kale noo timid malcamada noogu timid, sidiiaan u sheegnay maasha allah waa marka hore way ficnaan jirtay, gadaalna waxaa la yidhi waxa weeyaan waxba ma qabto, waxba waalidka ma caawinayso. marka qofka naftirkiisaba qur-aanka iska saarlay maaha, waa in loo sheego, in la yidhaahdo maxaa samaysaa qofka in la weydiiye. marka sheekh maxamedow baaraka allahu fiik, barnaamijkii waa gabagabaynaynaa biidn illahi tacaala. waqti kaleedna waa insha allah waa kugu martiqaadi doona barnaamijka hadduu ilahay ka raali noqdo. waxaanu kusoo gabagabaynaynaa insha allah aayaatu min dikri illahi alxakiim, aada noo akrin doonta insha allah. falyatafadal mashkuura. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ما شاء الله بارك الله فيك. واجعلان لين ما شاء الله الله كو زيادة إن نوصي ودد لكن وقتي أنا قد أمانة أساس درتيد أيان أصو قابني داود يلا أننا الله نقول انتفاعه إن شاء الله. وحن جعلنا شيخ محمد إنه كم النقضه dadka masaajidka kilbon nala joogo, madrasada qalam nala joogo, inuu ka mid noqdo, qeybna aan ka siino si ummadda xanuunsan, dadka muslimiinta idilkooda, muslimiin wixii dhan dhammaantooda, inuu ilaahay subxaanahu wataala dartiis u caawiyo oo qur-aankaasna uu ku akhriyo. asiga macalin cumar ayaa noo jooga biidn illahi tacaala. wixii faahfaahina insha allah biidn illahi tacaala hoos ayaan idinku soo qori doonaa teleefanada iyo waxaas oo bookinka aad ka samaysan doontaan biidn illahi tacaala qofkii qur-aanka raba in lagu dul akhriyo biidn illahi tacaala. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. barnaamijka anigoo ilyaas cali nuur ah ayaa idinla socodsiinayay. waxaa gacan iga siiyey saaxiibkay biibaaye iyo farsamo yaqaankiisa saaxiibkiis kale. allah karaameeyo dhammaantood ajar iyo xasanaad allah ka siiyo. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. waxaan idinkaga tagaa wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuhu fi amaan illah. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.